tahay dhaxalkaygu waa Somaliland dhiigaygu waa Somaliland dhuuxaygu waa Somaliland dhawaqaygu waa Somaliland igu dhee kugu dhee Somaliland nagu dhee. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دواد برنامج كارون دي كديارني مالين تقرن استديو تمن كماي سيد الله حسين دقمد علي في الجبل كسنا يدقان ده هاسي مادا مالين تنو كوبي سدن جورا دي كسوري تقرن مدة جمهورية الصوماليلاند يدون الله كلا هرين وينين تمالين تن إمام المسؤولين ويل يوحجرد عرور يعرّلا بعض. حوال كثير عرف وين سيستم كعاي نور الشغير سيستم كعاي نور قرب قبل سيستم كعاي عادي بقول ما تتي بالله وين غير عرف وين انت وحيغا على ما انت وافر حد Somaliland oo dhan bayna qabta waxaan halka ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland gudaha iyo dibadda ay joogaan may waatee oo waatuba taariikh maleedo maxaa lagu tilmaamaa koob sadakii may 1990 intaas hal ku dhiga waxaan u mahad celinayaa saddexda gol qaran golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wasiirada ka soo wareegtay maanta waxaanu ku naaloonaynaa nabad horumar iyo midnimo sidaa darteed waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo xukuumadda baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalintii qaranka waa maalintii calanka Somaliland waa maalin lagu qaaliya waa maalin u baahan in la wada ilaashado ciidda iyo calanka dhammaantiin aad baan ku mahadnaqayaa waxaan kaloo hambaleynayaa dhammaan shacabweynaha degmada Ceelafweyn oo horeeyaan maamulka degmada Ceelafweyn madax dhaqameedka dhalinyarada haweenka wasaaradaha kala duwan ee dawladda ciidamada qalabka sida nooc kasta ay yihiin maanta waa maalintii goon istaaga jamhuuriyadda Somaliland 18 May waa maalin farxadeed waa maalin inuu dabaal degayno goon istaagu waa go'aan shacab halkan inagoo isku dhan oo bulshadii reer Ceelafweyna waxaanu baaq uga diranaa beesha caalamka inay bixiyaan aynu helo xaq aynu leenahay ictiraafka 18 May xuskeeda waxaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay abaarna waa ina haysata oo waqti adag bayna ina haysta waxaan leeyahay ilaahay ha loo noqdo ilaahay aan barino ilaahay inuu raxmad khayr qabto ina siiyo 18 May oo dalkan xorriyadiisa meel halgal adag loo soo galay duulayno cidna maagi mayno qarannimadeena Somaliland shuxuurteenu muujinaynaa waxaynu kaloo muujinaynaa inagu inaynan cidna nibcayn mid derisinala ah mid inaga fog iyo mid inoo dhow inaynan cidna nibcayn baynu muujinaynaa qarannimadeennaynu muujinaynaa waxaanu nahay qaran xornimadiisa qaatay 60kii qaran lagu muransanayna ma nihin haddii aynu isku darsannay xukuumaddii koonfureed dee xukun militari baynu ku qabsadeenoo berigii ay xukunka militari 69kiina ku qabsadeen baynuba ka gonay laakiin waa la calaamadiyey tan eedhiin maygan waa lagu calaamadiyey waa qarannimadeenna inaynu muujisanno maalintii aynaga luntay 60kii ee aynu la soo noqonnay ee burco lagaga dhawaaqay weeye maanta waxaannu leenahay oo aannu caalamka u sheegaynaa oo aannu ummadaha dawladaha jaarka aannu u sheegaynaa ee cid kastoo ay khusayso aannu u sheegaynaa inaanay madax bannaanidayadu iyo dawladnimadayadu aanay gorgortan lahayn ee ay muqaddas tahay maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waa maalin dhammaan qaranka Somaliland isku shucuur yahay waa maalintii go'aansutaagga Somaliland sanad guuradii ka soo wareegtay 31kii Somaliland ay jirtay gaar ahaan 19 markii lagu xusay ee aynu kaga dhawaaqnay ee shacabku shucuurtooda ku muujiyeen gobolka Togdheer ay ku xusayeen xuska 18 May ka soo wareegtay sanad guuradeennii 13aad hambaliyaan leeyahay Somaliland way dhaqaaqday Somaliland macid bas weydiinaysa waxaan leenahay beesha caalamka indhaha naga qarsanina Somaliland waa dhaqaaqday indhaha naga qarsan militariga tababaran amniga iyo wax qabadkooda
qaabeynta shacabkooda muuqaalka socodkooda miisaanka qalabkooda dadku way majeerteen marra waaxidiga hooyo muxubiya salaam diro ummadda reer Soomaaliland maanta u dabaaldegaysa koobisadon guuradii ka soo wareegtay xilliga ay madaxbannaani qaatay Soomaaliland maanta u mahad celinaya ilaah ma mahadle dadweynaha u soo baxay 18 May oo himiladoodu muujiyay insha Allah waana gaari doonaa koobisadon guuradii Soomaaliland walaalayaal waa guulaysan بدي كم يدحض وسارها إلا ما دولته إيو أنت ما شغير يسوي هوشة ما يفهم يسوي وأنت وحان مر لبعض أنا اللي إلا وكرين هو ويله هذا الماء عيلف وين ومر والبا كحماسة بدن حاجة سلام مقطع وحن لنا يقول إيستا هذه قوم سنتين وهاي مقدم مال أنت ينقرنا يي ورضي هواك هاي مقدم العيالة وهاي مقدم أرضيدي وحبوك هواكي وحبوك اليوم نكروه دبني أنت سو ناسو أبام شيء ناسو ودي مددي إشاس وطي وحنقوم هذلينا دبلتقي ودي ديارتنا وقيا الموتيين waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin quruxdan iyo bilicdan iyo maqaam kansare idinka ayaa sameeyay ururada bulshada ee kala duwan laamaha dawladda ciidamada dhammaantiin saxaafadda idinkoo annagana kala gurayn waa idin mahad celinayna waxaan leeyahay dadka yaana iskaga khaldamin ma nihin gobol ka go'ay South Soomaaliya waxaynu nahay laba dawladood oo 60kii ka hor ahaa laba dawladood oo la oran jiray Italian Protectorate iyo Somaliland British Protectorate ayaa layna kala oran jiray ceelaf weyn waa taa madaxweyne maanta waa midaysan tahay waad aragtaan cududooda iyo waxa weeyaan shucuurta ka taagan waana degmadii u horeysay ee calanka laga taago sidoo kale guumaystihii rijimka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre waa degmadii ugu horeysay ee ugu hor xirowda weeye madaxweyne waxa fariinta aan maanta shacabka heer Celafeen ku diray waxa weeye baaxad ahaan dhul ahaan iyo bableeshan ahaan iyo qadiyad ahaanba maanta gobol waan u qalanaa